dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijyadeennii iyo wararkii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo waliba qodobada kale la xiriira wararka markaasi ugu sareeya danaha iyo waliba wararka caalamka maanta bishu waa 15 waa July bishu waa maalin sabti ah dabcan wararkii shalay oo jimco ahayd waxaad ku dhageysateen qodobadii ku saabsanaa xaaladaha gobolkaasi ka taagan ee ugu culus iyo waliba waxtar la'aantii uu ku dhamaaday kulamadii faraha badnaa ee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo gobolka ku qaatay muddadii 4 maalmood ahayd intayna wararka inaan u gelin dalkaasi qadar ka soo kordhay iyo waliba xiisadda dalkaas kala dhaxaysa bal aynu horta ka horreeyno warar ku saabsan dalkaasi Turkiga maanta waa sanad guuradii koobaad kolkii ay fashilantay isku daygii military ee dhiigu ku daatay ee dalkaas ka dhacay 15 July sanadkii hore maanta oo kale xilli habeenimo ahayd oo dabcan ay isku dayeen cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida dalkaasi Turkigu inay la wareegaan talada dalkaasi isla markaana ay kharajiyaan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo markaas ku sugnaa magaalada xeebta Marmaris oo uu fasax ugu maqnaa waxa marka maanta dhacay isku soo baxyo waaweyn oo ka dhacay magaalooyin guud ahaan dalka Turkiga oo dhan ayaa maanta xus ballaaran ka dhacay waxa ugu sii daran ama ugu xoogan xusaska labada magaalo waaweyn waa magaalada Ankara iyo magaalada Istanbul waxaana isugu soo baxay kumanaan kun oo qof oo ruuxayay calanka dalkaasi waxaana runtii dadkaas socod ku mari doonaan jidadka waaweyn ee magaalooyinkaas guud ahaan dalka gaar ahaan labada magaalo waaweyn ayagoo socod lagu tilmaamay socodka maalinta qaranka iyo midnimada ay ku muujin doonaan sida ay ugu xun yihiin isku daygii ay sameeyeen cutub ka tirsan ciidamadaasi oo dabcan la leeyahay waxa ka dambeeyay wadaadka la yiraahdo Fethullah Gulen ee ku sugan gobolka Pennsylvania ee dalkaasi Mareykanka waxaana madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan uu maanta laba qodbood ka kala jeedi doona magaalooyinka Istanbul iyo Ankara magaalada Istanbul wuxuu kaga qayb gali doonaa isku soo bax ay la sheegay in ku dhow 200 oo kun oo qof ay isugu imaanayaan halkaas uu qodbad u jeedi doono markuu soo dhameeyo xafladaas halka hadalka qodbad taariikhi oo halka ka jeediyo uu qodbad kale ka jeedi doona xarunta baarlamaanka ee magaalada Ankara ee la duqeeyay habeenkii 15 July sanadkii 2016 ay duqeeyeen ciidamadii Afgambigu wuxuu qodbad hordhaca maanta ka jeediyay isku soo bax kale oo ka dhacay magaalada Marmaris ee dalkaasi Turkiga wuxuuna qodbadiisa diirada ku saaray sida loo fashiliyay buu yiri isku daygii Afgambi ay wadeen buu yiri qaswadayaasha wuxuu yiri qaran dumiska ahaa khiyaanada qaran sameeyay wuxuu sheegay in Turkiga uu runtii uu ka dhacay waxa uu ugu yeeray xadgudub weyn oo caalami ah oo dabcan loo geystay buu yiri meel ka dhac shacabka Turkiga kadib markii la dilay buu yiri 250 qof buu yiri oo dalkaasi u dhashay lana dhaawacay in ku dhow 3,000 oo qof oo la dhaawacay wuxuu tusaaleeyay ama sheegay dadku sida uu kala dhinteen wuxuu sheegay in 47% boqolkiiba dadkii shahiiday buuri ay dileen buuri xabadihii ay ridayeen buuri calooshood shaqaystayaashii ciidanka ka tirsanaa ee la adeegsaday buuri halka boqolkiiba 21 ay ku dhinteen buuri bambooyinkii cuslaa ay tuurayeen buuri diyaaradaha dagaalka wuxuu sidoo kale sheegay in 9 kamid ah boqolkiiba 9 dadkii dhintay ay dileen buuri taangiyadii iyo hubkii cuslaa ama tiknikadii dhexmarisay magaalooyinka isku dayday inay goobaha waaweyn iyo buundooyinka ay qabsadaan ama la wareegaan halka buuri boqolkiiba 6 dadkii dhintay ay ku dhinteen buuri xabadihii ay ridayeen buuri ama furayeen diyaaradaha helicopteriska qumaatka u kaca ee qoryaha darandooriga u dhaca laga ridayay wuxuuna sheegay in kaliya oo ay dhinteen 35 ruux oo ka tirsan buuri qabanqaabiyaashii iyo abaabulayaashii buuri kacdo Afgambiga wuxuuna sheegay in Turkigu inuu yahay dal xornimada kaga horeeya buuri iyo xuquuqda aadanaha dalalka buuri sheegta ee ku faana dunidana laabta ku garaaca ee dalalka Yurub ay kamid yihiin waxa cadeynaysa buuri in kumanaan qof buuri oo ka tirsanaa buuri abaabulayaashii iyo kuwii soo qaban qaabiyay buuri dilka foosha xun ay wali si xor u joogaan buuri dalkaasi Turkiga oo wali aan la qabqaban isla markaana si bini'aadanimo ku jirto loo baarayo buuri ayagoo guryahooda jooga oo shaqaysanaya shaqooyinka qaarkoodna laga cayriyay balse aan xabsina la gelin lana dilin buuri wuxuu sheegay in Turkigu uu ka fiican yahay buuri 15 sanadood ka hor oo ahay dabcan xilligii xisbigiisa la yiraahdo xisb
isbahaysiga cadaaladda iyo horumarka ee dalkaasi qabsaday 15 sanado ka hor uu dalku uu ahaa buu yiri dal dhaqaalihiisuna uu liito samcadiisu ay liidato maanta wuxuu sheegay in dalka Turkiga uu horumar dhinac walba gaarsiisan yahay dhinaca tiknoolajiyada dhinaca dhaqaalaha dhinaca militariga dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca dhismayaasha iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca jaamacadaha dhinaca buu yiri xiriirka caalamiga ah iyo dunida inta ay ku leeyihiin hawlgalood ama xarumood waxa loo yaqaano xiriirka dhinac walba leh isku dheeli tiran ayuu sheegay wuxuu sheegay in dalkiisu maanta uu isku filaansho dhinac walba gaaray wuxuu sheegay uu shafka u garaacay madaxweyne Erdogan in dalkiisu uu runtii buu maanta ka dhaqaale badan yahay buu dalal waaweyn oo Yurub ah oo runtii moodaya buu in Turkigu bariyayo inuu ku biiro uu doonayo inuu ku biiro oo gacmaha u horsanayo ururka qaramada Yurub ama EU ama midowga Yurub wuxuu sheegay Turkigu inuusan joogin waayihii uu bari jiray buu dalalkaas galbeedka wuxuuna yiri Turkigu maanta Yurub ayada u baahan ee Turki maanta Yurub uma baahana wuxuu sheegay in dalkiisu uu yahay dal uu ka jiray wili sharciga iyo kala dameynta sidoo kale wuxuu sheegay in aan maanta wax indhaha laga qarsan karo aysan hayn dimuqraadiyadda hore baaxad leh iyo horumarka dhinaca wuxuu yiri xukunka dadka wuxuu dadku ay doortaan buu cid kasta oo ayaga masalaysa ay doortaan buu ka soo bilow buu ilaa iyo wuxuu yiri dadka maxkamadaha ama qaaliyaasha maxkamadaha ay dadkaas ay doortaan wuxuuna sheegay in dalka Turkiga uu yahay buu dal han weyn dunidana wuxuu yiri kula buu samcad ayna dhisi doonaan buu runtii waxa uu ugu yeeray Turki casri ah oo wuxuu yiri dunida oo dhan ay ka heebaysato waa sida uu sheegay wuxuu sidoo kale madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ballan qaaday in dalkiisa uu horumar ka gaarsiin doono dhinaca tabarta nuclearka iyo waxa uu ugu yeeray isku filaasho buu yiri tabar laga dhaliyo buu badda iyo dabaysha oo wuxuu yiri Turkigu uusan isticmaali doonin mar dhow haba yaraatee wax loo isticmaalo saliid iyo gas iyo batrool wuxuuna sheegay in dalka Turkiga uu horumarka uu hiigsanayo ay tahay in ay ku farxaan buu dalalku aysan hayn ka naxaan wuxuu ka digay taageerada dalalkaas uu sheegay ay siiyaan buu argixisada wuxuu yiri dunida galbeedku dunida kale ee islaamka iyo dalalka kale wuxuu yiri been bay u sheegaan laakiin Turkiga anaga hadaan nahay been noo sheegi karaan wuxuuna tusaale u soo qaatay in kooxda la yiraahdo PKK uu sheegay inay urur argixisa yihiin oo dadka isku qarxiya ay taageero iyo hooyba ka helaan buu dalal waaweyn oo dalalka Yurubka ku yaala halka kuwii ka dameeyay buu afgambiga noocaas ee dadka inta leeg ku dhintay shacabka ay wuxuu yiri hogaamiyahoodii uu ku raaxaysanayo buu dalka Mareykanka wuxuuna sheegay in Turkiga uusan aan lagu khasbi doonin buu siyaasadda dibadda laga soo waariday lagana gudbay buu xilligii Turkiga wax loo yeeri jiray ama la heli jiray buu hogaamiyaal Turki ah oo u dhigan nugul buu galbeedka iyo arrimahooda wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in dunida galbeedka iyo Turkigu ay yeeshaan buu cilaaqaad fiican oo ixtiraam isleeg ah iyo waliba wuxuu yiri in ay dalalku ay noqdaan buu dalal isku filan ama isxishmeeyo buu loona arko buu dalkiisa dal isku filan oo aan u baahnayn wax haba yaraatee ka yar buuri ganacsi dhaxmara oo si isleega iyo dana wuxuu yiri sida dalalka adduunka ay wada dhaqmaan ah wuxuu sheegay madaxweynuhu inuu khudbad kale ka jeedi doono magaalada Ankara oo baarlamaanka uu khudbad kale u jeedi doono asagoo sheegay in hadalkiisa inta kale uu dib ugu dhiga doono khudbada baarlamaanka si doono iyo shacabka magaalada Istanbul uu kumanaanka kun ee qof kula hadli doono ayuu sheegay waxa yaasiin xusud badan in magaalooyinka dalkaas oo dhan maanta ay dadku socod ku marayeen waxa la arkayaa dadka huwan calanka dalkaasi xidigta cad bartamaha kule midabka guduudan leh iyo bisha waxa la sheegay in guud ahaan shacabka loogu baaqay inay midoobaan iyadoo dhawaan uu jiray socod loogu yeeray socodka cadaaladda uu hogaaminayay hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Turkiga kaasoo la sheegay in xogaa dadka uu Turkiga uu yara kala qaybiyay balse madaxweyne Erdogan ayaa wuxuu ugu baaqay Turkiyiintu inay gacmaha isku qarsadaan horumarka dalkooda ayna wuxuu yiri runtii aysan runtii buuri aysan wax fursada siinin buuri kooxaha cadawga ah buuri ee doonaya buuri Turkiga in lagu celiyo maalmihii madowga waa sida uu sheegay inta dadku ka baxro wararkii Turkiga Yaasiin ay mar kale soo noqono